imaaraadka carabta oo dowladaha caalamka ka codsaday in Somaliland loo aqoonsado lana maalgashado maadaama ay ku taal qaarad aad ugu muhiim ah adduunka oo dhan. warbixino ay qoreen wargeyska New York Times iyo Washington Post ayaa lagu sheegay in Somaliland dowladaha imaaraadku maalgashi caalami ah ka wado. warbixino ay qoreen wargeyska New York Times iyo Washington Post ayaa lagu sheegay in Somaliland dowladaha imaaraadku ay ka wado maalgashi caalami ah. warbixintan ayaa lagu sifeeyay in Somaliland noqon doonto dalka ugu qanisan dalalka Afrika ama East Africa mustaqbalka dhow. taasina ay sababtay in waddanka imaaraadka carabtu gelinayo $100 milyan oo dollarka Mareykanka ah. imaaraadka ayaa wadamo badan oo ay xidhiidh iyo xulafaysi ay leeyihiin ka codsaday in laga shaqeeyo aqoonsiga Somaliland lana maalgashado, waxaana ilaa hadda ku raacay wadamo dhowr ah oo ay ka mid yihiin China iyo Mareykanka. sidoo kale waxaa ku raacay oo waliba dhinaciisa aad u soo dhaweeyay waddanka boqortooyada Sacuudiga. dhinaca kale badda Somaliland ayaa waxaa mari doona maraakiibta caalamka ee hore uga caaganaa badda cas, taasi oo canshuurtooda ka jabi doonta hadda maadaama ay gacanka badda Jamhuuriyadda Somaliland ay joogaan ciidamada imaaraadka carabta oo sugi doona ammaanka maraakiibta oo markii hore ka caaganay. adduunka oo dhan ayaa arrintan imaaraadka carabta ku tallaabsaday ee saldhigga military iyo maalgashiga dekedda Berbera si weyn u soo dhaweeyay, waxaana faa'iido weyn ugu jirtaa shacabka Somaliland iyo dowladooda haddii ay ka faa'iideystaan. dhinaca siyaasad ahaan ayay arrintani u fiicnaan cadowga Somaliland maadaama ay tahay arrin wax badan dooxaysa oo daha ka faa'iideysa. ugu dambeyntii 26 sano ay Somaliland jirtay ayay container ku xidhneed, waxaana albaabada jabiyay madaxweynaha Somaliland Maxamed Maxamuud Siinaayo oo door weyn ka qaatay arrimo badan oo la tabi doono markuu kursiga ka dago lana qiri doono. waa Alas TV ee bartamaha YouTube-ka. ha iloobin inaad subscribe noo saartay janaalkan si aad u hesho warbixinadii ugu dambeeyay caalamka. mahadsanid.